gaalkacyo waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu kobaca koriimada badan waa bartamaha wadanka Soomaaliya waana xudunta dhalinyarada Soomaaliyeed kobaca iyo koriimada ka socda waa mid ballaaran warbixintan oo aan ku eegi doono heerarka kobac dhismayaasha magaalada Gaalkacyo taasi oo tusaale wanaagsan u noqon kara fikirka mustaqbal ee laga haysto magaalada marka loo eego magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya waxa ay ka mid noqonaysaa meelaha ugu kobaca badan dhanka dhismayaasha muuqaalada idin hormaraya waa dhismayaal si gooni ah ay u dhisteen shirkado iyo shakhsiyaad gaar ah waxaana taasi feer socda mashaariicda dadweynuhu maalgelinayo oo ay muuqda u yihiin wadada weyn ee halbowlaha magaalada isbitaalka weyn isbartiinka masaajidyada iyo xarumaha dadweynaha Cabdiqani Maxamed Faarax waa agaasimaha waaxda howlaha guud ee dawladda hoose degmada Gaalkacyo waxa uu inoo sharaxayaa isbeddelka dhisme ee magaalada ka socda farq weyn baa u dhaxeeya waxa laga yaabaa waagi hore bishii oo kale in la dhiso 10 guri ama 15 guri oo ah ugu badan tahay fiilado kale 2 qol 1 qol 3 qol adigu fiilano ay ugu weyn tahay laakiin hadda wax badan baa iska bedelay dhismayaasha waxa laga yaabaa bishii oo kale in la dhiso 70 guri 60 guri oo ah 20 ama 15 kamid ay yihiin guryaha waaweyn oo dabaqyada ah iyo goobaha ganacsiga lagu ganacsada saasay marka ay ku kala duwan yihiin dhismayaasha haatan ka socda Gaalkacyo waxaa sabab u ah deganaanta iyo habka dhismeed oo dib loo hagaajiyay sida uu mar kale sharaxay Cabdiqani degmada Gaalkacyo marka loo eego sanadihii hore wax badan bay kaga duwan tahay kobaca dhisme aad buu socdaa taasoo ay kaliftay wadooyinka iyo toonbalaynka kusoo siyaaday magaalada sanadii la soo dhaafay ama wadooyinka dambaba taasoo kaliftay in qof walba uu mataqaanaa isbedelo marka wadada kusoo beeganto qofka booskiisii ama guriga qiimihiisina uu isbedelayaa booska qiimihiisina waa isbedelayaa qofkiina lix jecel aan hadda ka hayn baa ka haynaysa marka waxay noqonaysaa qofkii boos ku lahaana inuu booskiisa dhisto qofkii guri ku lahaana laftiisa inuu gurigiisa dayactirto oo sidii hore ka bedelo marka aad bay uga duwan tahay sanadii hore marka la soo eego kobaca ah dhismayaashuna aad buu u socdaa isbeddelka iyo weliba qurxinta muuqaalka guryaha soo xoogsanaya habka loo wajahayo iyo sida lagu gaaray waxaa sharaxaya injineer Cabdiqani Faarax Cabdullaahi Yariisow hal abuurka iyo waxbarashada dhalinyaradu waxa ay bedeshay wajiga dhismayaasha magaalada Gaalkacyo haddaan qaybta anigu professionkayga oo constructionka aan ka hadlo ama dhismaha runaantii magaalada waxaa iska bedelay waxyaabo badan dhanka dhismaha markay yimaadaan su'aal ahaan guryahoo kale waxaa soo baxay rag badan oo dhalinyaro ah oo wax soo bartay oo maskax fresh leh oo soo kordhiyay design cusub qofkii meeshii markii horeeto oo guri loo dhisi jiray uusan hore u arag uusan garanayn oo lagu diyaariyay meesha markaa site-ka hadda waxaa yacni la gaaray in dadkii qofkii gurigiisii asagoo weli la dhisin oo la taagin la tuso la dhexgeeyo la yiraahdo halkaan waa jikadii halkaan waa qolkaaga chiefka halkaan waa master bathroomkii ama suuligii chiefka intaasoo qol buu guriga ka kooban yahay qofkii asagii oon weli aanan maaragtay gurigii la dhisin in wixii uu rabay laga haqabtiro oo la tuso oo la dhexgeeyo markaas kadib qofkii asagoo qanacsan haddana loo sameeyo qiimeyn guud oo qarashkii guriga uga bixi lahaa ah oo dhammaystiran markaasna maaragtay saas qofkii asagoo haysta gurigii uu dhisan lahaa naqshadiisii iyo wixii uga bixi lahaa markaas gurigii uu ku bilaabo halkaa waxaa isbedelay aragtiyadii hore oo ahayd in maaragtay guryaha magaalada oo dhan naqshadahoodii ay isku mid noqdaan sababtoo waxa weeye dadkan injineerada khibradda wax ku dhiso oo kale dee guri la dhisay oo kale baa guri kale laga ag dhisayaa oo la mid asagii marka taa waxay keenaysaa in deegaankii aysan naqshado cusub oo maaragtay qurux badan aysan imaanin oo isku wada mid noqdo isku wada ekaado marka dhanka guryaha markii la yiraahdo waxaa iska bedelay qaababkaas waxaa kaloo soo kordhay maaragtay in oo dhalinyarada maaragtay wax baratay iyo dadka horumarkay gaarayaan la socda in magaaladii maaragtay bilicdeedii ay kor u kacdo sidii in dib loo naqshadeeyo ganacsiyadii kaalmihii shidaalka
laamiyadii waxaasoo dhan waxaa ka qayb qaadanaya injineerada akademiga oo soo baxay oo dhalinyarada ah oo wax soo bartay. ugu dambeyn isbeddelka iyo kobaca ku yimid magaalada gaalkacyo waxa uu muujinayaa inay jiraan ifafaallo xoog leh oo muujinaya halka mustaqbalka u socoto magaalada gaalkacyo. warbixintan waxaa idiin soo jeedinaysay anigoo ah Najmo Aadan Maxamed, waxaa duubaysay Sagal Siciid, waxaana idiin farsameynayay Mustafa Xaarin. inta aan warbixintan oo kale ah ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.